ونفقه فيتامين بدن ayaa ku jira sidoo kale waxaad ka helaysaa borotiin muku haysaa dhiig yari ma dareemaysaa dhabar xanuun sidoo kale energy la'aan muku haysaa tabar dari mar walba ma tahay qof caajis dareemay isticmaal bismillah macaan sidoo kale caruurta ayaad u sameyn kartaa ku joogaan caruur yar fahamka waxbarashada ku hooseeya u sameey fahankooda maskaxda ayay sare u qaadaysaa sidoo kale haddii aad tahay qof cuntada ay ka xiran tahay appetite-ka cunto badan aanan qaadanayn aad ay kugu fiican tahay isticmaal maxay tahay shayga intaasiyo shay kuu qabanayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo walaalkiina bashka bashiir oo idin lagu soo dhawaado youtube channel kayga haddii aad tahay markii kugu horeysaan soo booqato waxaad si sharaf leh kaga codsanaya inaad kanaalkeena subscribe bac ku siid video la garee aad u mahadsantahay saaxiibaan ku soo aragtay waxaan rabaa inaan kula wadaago 8 faa'iido ay leedahay Fanugreen ama Bidurul Hulba طبعا waa wada taqaana laakiin sirta iyo faa'iidooyinka faraha badan ay leedahay haddii aad ogaan lahaydeen maalin walba waad isticmaali lahayd marka maanta waxaan kula wadaagayaa 8 faa'iido ay leedahay xulbada mar walba horta commentiyada waxaad ku soo qorteen aan arkay fariimihiina horta aad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan mar walbana aad igu duceysaan aad igu mahadcelisaan waxyaabaha faa'iidada leh aan soo gudbiyo anigana waxay ii tahay dhiirigelin commentiyada qurux badan waan akhriyaa kale waxaad tiraahdeen bashkow adiga waxyaabaha aad soo gudbisid 8 faa'iido 7 faa'iido iyo 10 faa'iido wax ka bedelan ma jiraan miya horta shayga markuu wareysa aad ka hadlaysay macluumaadkiisa waa soo diyaarinaysaa markaad soo diyaarisay kadib waxa u baahan tahay in shay walba markii aad ka hadashid waxaas u fiican tahay dhag ashraxaadna aad siin kartid si qofkana u fahma dabcan iskoolka ama waxbarashada dhammaan a b wax walba waxa loo sameeyaa nambaro hadduusan nambaro jirin qofkeena ma fahmayo waxa laga hadlaayana meeshay u socdaan ma fahmayo waxa laga yaabaa inuu muuqaalkan uu ku caajiso shaygiina uusan fahmin markaan ku dhaada maanta faa'iidada xulbada ay leedahay 8 kaaga sheega macnaheedu ma 8 ka faa'iido kaliya inay leedahay faa'iidooyin kale oo fara badan ayaa jirta laakiin kuwa aan u arko ugu muhiimsan qof walbana oo meesha laga haayo waxan ugu taraysa ayaan mar walba diirada saaraa inay idin soo gudbiyo marka saas u fahmo ma aha macnaheedu 10 shayal qaar waxa ka soo qaata 10 shayal qaar 8 shayal 7 hadba waxay ku xiran tahay shayga aan ka hadlaayo waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan diirada saaraa marka insha Allah saas u fahma sidoo kale muuqaaladana marka daawataan like commentiyada wixii aad jeclaanay su'aalo ku soo qor insha Allah anoon ka hagaranayn si wanaagsan qurux badan ana kugu soo jawaabayo kuguna soo gudbinayo wixii faa'iido leh ya mawduuceena gudo galno faa'iidooyinka ay leedahay xulbada faa'iidada koowaad waa nafaqo macdano fara badan ayaa ku jirto sidoo kale vitamins aad u fara badan waana borotiin فيتامين كهله بروتين كهله يو معدن فيتامينز كدمان هدي مركب بروتين مش هدو ساقلا هدي آتهاي قفرة إنه جيركيس ديستو أما بأوباهن يعني بروتين كيس أورا إنه جيركيس أود يشو وأوباهن تهاي حلبدا حلبدا مركب هرت شيء أشياء ولي وحاسيج على هاي سبرتكال أهانا هدي أن أود إنا إذن تسو حلبدا واتن بسم الله حلبدا هرتا حوغه waxay leedahay riixad so xitaa hadii aad cabto dadka qaar waxay dhahaan dhididka ay ka soo bixi yaani cabitaankeedana ma ahan miro oo aad ku raaxaysanaysid oo yaani macaan oo caraf badan ma ahan laakiin hadda midda aan cabayo way ka duwan tahay xulbada kala oo caadiga waxay ugu duwantahay waxay tahay shay waxaan ku daray aanan dhibsaneyn riixadeeda iyo macaan iga dhigayo fudud ina jeclaysiinayo inaan maalin walba isticmaalo xulbada ha waa borotiin waa u baahan tahay waxyaabo badan oo faa'iido kama hor dhacay waxa aan ka sameeyay kuuna fududeynayo qaab fudud aad u isticmaali karto kuna jeclaysiinayo xulbada waa kula wadaagi doonaa muuqaalka dhameyso waa nafaqo ayaan ku yiri sidoo kale way isticmaali karaan caruurta yar yar laakiin xadid aad u yar
caruurta sanadka ilaa 8 jir intuu kasoo gaarayo waxaa la siinaa qaado oo haafkeeda wax yariis ayaa siinaysaa intaad biyo ugu qastid sida ku siin kartaa sidoo kale waxaa samayn kartaa caano ayaad ugu qasi kartaa makiinada cajiinka tii karta waa la soo shiidi karaa iyadoo budo xitaa waa la helaa iyadoo mirihi caadiga la helaa marka labada qaabba haddii mirihi caadi aad helaysid wareer ma lahan biyaa dabka ku saaree markii way karkaraysaa ama biyaa la dhigi kartaa habeenkii biyo la dhigee way iskaga jiraa markay biyo la dhigtid waxay dhalaysaa biyo oo eg kalarkan shaah marka waad isticmaali kartaa wareer ma laha waxayna dabka saaraysaa dhowrkood daqiiqo horaad ka isticmaali kartaa haddii kale saan kuu sheegay caano ayaad ku qasan kartaa borotiin waaye haddaad jiim ciyaartid hadday nafaqa daro ku hayso waad isticmaali kartaa fitamiinana waad ka helaysaa faa'iidada labaad dhiig yarida anemiyada ay aad ugu wanaagsan tahay iyo weliba dadka appetite-ka uu ka xiran horey saan kugu sheegay vitamins badan ayaa ku jiro iyo minerals so fitamiinkaasi badan ku jiro wuxuu kaa saacidayaa dadka dhiig yarada ee hayso oo isticmaali karaan dhiigga ayay usoo celini sidoo kale qofka dhiig yarada waxay ka imaadaa qofkii appetite-kiisa uusan wanaagsaneyn cuntadii aan si fiican u cuneyn dad qaar waxaa jira wax way cunaan laakiin cuntada ay cunaan maxay tahay macmacaan sweeties iyo cunto burbur iyo saliid yacni kuwaasina waxba kuuma taray calooshu way kuu buuxinaya way ku dhirjinayaan laakiin jirkaagii wax nafaqa uu ka helaya malaha see u socdaan alaatuul saxarada la adina marka cuntada cunaysid cuntadii kale laakiin oo nafaqada iyo fitamiinka lahaa appetite-ka kaa xiran ma cuni kartid marka waxaa u baahan tahay xulbad inaad isticmaashid daily markii dambaysa appetite-ka ayaa kuu furmaada waxaa la arkaa digsiga bariiska iyo hilibka lasoo kariyey damka sii marka isticmaal haddii uu appetite-ka kaa xiran yahay aadna dareemaysid dhiig yari xulbada waa kuu fiicanta faa'iida saddexaad dumarka ay aad ugu wanaagsan tahay weliba markay noqoto hooyada caruurta nuujinaysa hooyo haddii aad tahay caruur nuujinaysa caanahaaga ay yar yihiin isticmaal cunugaa ku nuugaya waxaa laga yaabaa in adiga naftirkaa nafaqadii amaba hooyooyinka dabcan markay nuujinayaan waxaa laga yaabaa miisaankooda xitaa inuu isdhiba markay uurka leeyihiin laga yaaba inay cayilan yihiin caloosha ku wadaan wax walbay cunayaan laakiin markay cunuga nuujinayaan miisaanka ayaa ka dhacaya so waxa keenaysan waxaa waaye qof dhan aa ku xiriiro oo cuntadiisa biyihiisa wax walba u baahnaa ka nuugay marka xulbada waxay kaa saacidaysaa caano badanna inay kaa keento adigiina nafaqay ku siinaysaa wixii kaa baxay way kugu soo celinaysaa caano badanna cunugaagana wuu helayaa bucbucu ku noqonaya adigana fitamiin iyo waxyaabo badan oo nafaqa ayaad ka helaysaa sidoo kale dumarka caado wareerka ayadana waa sababta aan ku yiri dumarka aad ugu wanaagsan tahay caado wareerka marka qaar dumarku waxaa wajaha hormoon balansigooda inuu isbedelo caado wareer waxaa la yidhahdaa yacni xilliga oo caadada ay ku imaan jirtay haddii ay kadib dhacdo ama 2 bilayba caadada iska maqnaani 3 bil mararka qaar way dhacdaa normal so xulbada isticmaal caadaday kuu saxee yacni shayaal kale oo kalena way jiraan insha allah mar kale ayaan kasoo samayn doonaa muuqaal marka xulbada caado wareer haddii aad dareemaysa ama caadada aad ku xanuunsanaysid isticmaal aaday kuugu wanaagsantahay faa'iida afraad ay leedahay xulbada waxay aad ugu wanaagsan tahay maskaxda fahanka qofka ayay aad ugu wanaagsan tahay ma ku joogaan caruur fahamka ku dhiban wax akhriska amaba adiga akhriskaaga fahankaaga xoogahoo wax ma ku jiraan isticmaal xulbada waxaa ku jira vitamin B complex aad ugu fiican maskaxda marka haddii fahankaaga uu yara adagi ama caruurta yaryar waxbarashada marka la geeyo fahankooda uu yara hooseeyo xulbada ugu dadaal cuntada aad siinaysid ugu dar shaaha ugu dari kartaa waxa ugu dari kartaa caanaha waa kula wadaagi doonaa sida ugu fudud aysan ku nacaynin ayna ku cabi karaan marka xulbada aad ugu wanaagsan tahay haddii aad ku dhib qabtid fahanka maskaxda ay aad ugu wanaagsan tahay marka isticmaal faa'iida shanaad ay leedahay xulbada waxay ku siinaysaa energy awood aad u fara badan haddii aad tahay dadka xamaalatada ah xoogooda maalintii shaqooyin oo xoog iyo wax u baahan xoog marka lagu yiraahdo waxay tahay alaaba dejin kartaa ama yacni adii beeraley aa noqon kartaa shaqa ama mechanic ama bir iyo motor dejina whatever xamaali marka lagu leeyahay micnaha ma in loor kaliya asaaris shaqooyin waxaa jira oo xamaali ku saabsan dadka dukaamada hadda leh
loorkan jiid haddii lacala xamaalig li waayo asigaa ku qasba inuu kastamarka u saaro gaarigiisa ama wixii u wata so anyway shaqooyinka xamaaliga haddii aad haysid xulbada aad ay kugu wanaagsan tahay isticmaal energy badan ayay ku siinaysaa caafimaadka naftaadana way u fiican tahay intaan kula wadaagan saddexda faa'iido kala dhimo waxaan rabaa qaabka loo samaysanayo xulbada inaan kula wadaago saa ujeedaa xulbadan waa tan biyo kusoo karkariye dabkaa saare biyo caadi waxba kuma daraysid sokoraa ku darayn waxba kuma daraysid markaad dabka saartid uu yara karkara kalarkan jaallo ayuu noqdaa xulbada siday u eg tahay biyaha markaa saartidna miraha qaabkay u eg tahay ayuu ekaanaysaa so markay saa u ekaato sideedii haddii aad tiraahdid waa ku caawiyaa xoogoo way kugu adkaanaysaa laakiin aan hadda middaan inta ku jirto bismillah waa macaan waana caraf xulbada dabcan caraf maaha shiirkeeda ku dhibaa xitaa shiirkeeda awood uu leeyahay yacni dhididkaada ayay kasoo uraysaa laakiin sidee u carfin kartaa una jeclaan kartaa inaad maalin walba cabtid aadna dhibsanayn so waxaan sameeyay hadda biyo aan ku karkariyey keliya kadib waxaan ku daray malab malabaan ku daray malabka dabcan waad ogtihiin waa caraf waana daawo ma aha wax isbedelaya haddana malabkaa ku daray carafta malabkiyaa soo carfay xulbadii carafti urteedii harda meesha ku baabacday sidoo kale dhadhankii oo yacni xulbada waa qareer haddii aadan shay kale aadan ku darin sideeda ku cabi kartaa wareer ma laha laakiin qofkiiba u adkaysan kara laakiin qofkii ay ku cusub tahay horena u isticmaali jirin way ku yar adkaanaysaa marka shaxdan isticmaal malab yara ku daree markaad karkarisid muku karkarinaysid yaa malabka waad karkarinaysaa markaad karkarisay ay karto ay isbedesho soo gadinaya koobkaana ku shubinaya waad ka miiri miraha waad iska miiraysaa soo markaad inta ku jirto malabkiyaa kor kaga daree markaasi waa jeclaanaysaa caraf maalin walbana inaad cabtid ma dhibsanaysid marka qaabkaas ayaad u samaysan kartaa faa'iidada lixaad ay leedahay xulbada haddii ay ku fadhiso caloosha ayay kuu socodsiinaysaa dad waxaa jira saxaradooda ay adag tahay mararka qaar saxaradaada haddii adkaatana baabasiira kusoo salaamayo baabasiirka wuxuu ka imaadaa mar walba haddii ay saxaradaada adag tahayba saxaradii dabcan waa ogtahay markay soo marayso waxaad dareemaysaa xoog haddii xoog kaaga soo baxana meeshii ay kasoo baxday baabasiir wixii dhana soo baxa so dadka qaba xitaa baabasiirka si aad u ilaalisid mar walba waxaa aada u wanaagsan in saxaradaada ay jilacnaato hadduu mar kugu kaco khalaas markaas waxay kugu qasbanaanaysa inaad daawi iyo haraadisid baabasiirkan qof walba biniaadan de waa xubintii saxarada qofka haddii adkaataba markaas meeshii ay soo maraysa dilaaca imaanaya ama dhiig waxaa soo raaci kara marka calooshaaday mar walba ku dadaal inay yara jilacsanaato shughulku ma lihi laakiin saxarada ha jilcanaato cunooyinka xulbada yacni spinachka kiwiga qudaar waxaa jirtay salaatada green foodka dhan aad u wanaagsan yihiin digirta mangibi waxyaabaha dhan saxarada ay jilcayaan markaasi adii baabasiir waa kala nabad galaysaa haddii laakiin calooshaada ama saxaradaada ay adag tahay mar walba waxaa waaye waa dhibsanaysaa mar walba markaa suuliyo geshid qof oo yacni aad dareemi kartid wixii kasoo saxay inuu xoog iyo yacni inuu kusoo saaro anyway haddii calooshaada ay fadhisa xulbada way ku fiican tahay saxarada ay kaa keenaysaa ku dadaal ay toddobaad ay leedahay xulbada difaaca jirka ay aada ugu wanaagsan tahay habeenkii markaad seexanaysid caano ku karkarsa haddii aad dareemaysid hergab iyo yacni mararka qaar hawadu way isbedeshaa hadda xilligan lagu jiro anaga kuleelka samarkee laga sii baxayaa bisha kale marka qabowga intuusan soo gelin hawadii aa isbedelaysa sax hawadaas isbedesha kuleelaa ku jirta hawada qabowga imaanaysa difaacay kuuta waad isticmaalaysaa haddii aad isticmaashid hawadiin markaasi adoo almost difaac ku jira ayay imaanaysaa qabowgii normal markii waa la qabsanaysaa hawada isbedelaysa marka difaaca jirkaaga ay ku adkeynaysaa xulbada aada u isticmaal faa'iida sideedaad ay leedahay xulbada aan kusoo gabagabeynaa waxay tahay dhabar xanuunka feer xanuunka korka dhamku xanuuna xulbada aaday ugu wanaagsan tahay waagan yaraa dugsiga dhiganaya horta xulbada iguma cusba aniga laakiin shayaal waxaa jira hadda aan idiin soo gudbinaya laakiin yaraanteydii dadkii hore ay aada u isticmaali jiray waxaan ku arki jiray xulbada anoo aada u yar ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa
waxaan ku arki jiray meelaha macmacaanada ayadoo xumba ahaan la qasay oo yacni waa maanta dhan waa la garaaca xunbay noqonay caano kale caddaan marka dadkaa laga iibin jiray ayadoo la shiido koob xulba ii dhiib meel waxay jirtay xitaa macmacaan alla ma xogga xulba isii aa ku qornaan jirtay ha haddii aa business macmacaani wax kuu furan yahay xulbo kusoo kordhi aad ay u wanaagsan tahay shaygan dadkiina waa caafimaad shay caafimaad ayaa siinaysaa ajir adigoo ka helaya sidoo kale business lacagna waad ka samayn kartaa ha mar walba waxyaabaha aan soo gudbinayay xitaa business ayaad ka samayn kartaan ha idinka daawanaya haddii meel business kuu furan yahay dukaan ama wax leedahay makiinad soo gado waa samayn kartaan dadkiina adoo waxaa siinaysaa shay caafimaad leh wadankii ka baxay dabiici ah waxtarna u leh ajarna waa ka heshay maaliye lacagna waa ka heshay sax laba dhinacba faa'iido ayaa qabta so xulbada aan kusoo xasuustay waagan yara dugsiga ma dhowa marka way isticmaali jireen dadka laakiin xiliyadan dambe dadkan dhalinyarada yacni kuma baraarugsan casiir oo sokor ka buuxday iyo waxaasay cabaa xulbuuf sankay ka qabsanaya waxaan u geenaysa shaygii oo waxtarkiisii macluumaadkiisa uusan ogeynba waayo wuxuu un keliya arkayaa waxyaabahan fast foodka macdonald iyo Pepsi iyo Red Bull iyo dadkii wixii indhaha ka babatay wixii mar walba wajigooda saan oo dadka ay marinayaan ama dadka qurbaha jooga marka wixii ay u maleeyaan wax faa'iido leh wixii aad u xiiseynaya laakiin haddii loo fiiriyo waxa aad ku wanaagsan waxtarna u leh qofka xulbada ha isticmaal haddii aa qabtid dhabar xanuun especially haddaa jiim ciyaartay xitaa dhabar ku xanuunayo feeraha ku xanuunayo xulbada aad u wanaagsan tahay alla ma xogga xulba isii marka waxaan jeclaystay inaan kula wadaago faa'iidada ay leedahay xulbada horta mar walba 8 ishaa hore in kugu sheegay 8kaas faa'iido ayaan soo aruuriyay aniga adiga daawanaya xitaa waxa laga yaabaa waxyaabo badan faa'iido ay u leedahay aniga aanan sheegin adiga aad taqaanida laga yaabaa mar walbana waan jeclahay waan ku celceliyaa muuqaal walba qaybta commentiga nagu soo qor si aan kaaga faa'iideysan aniga saan kugu faa'iideeyay waxaan u jeclahay dadkana daawanayana ayagana dee cilmigii wax walba way yaqaanaan shaygii inay noogu faa'iideeyaan waxtarka iyo faa'iidada haddii aad taqaanid oo dheeriya 8ka aan sheegay maan 8 kale ama hal ama laba ka mid ah qaybta commentiga nagu wadaag si aan adigana kaaga faa'iideysan sidoo kale muuqaalkan waa kugu amaana la wadaag walaalaha kale ee khayrka jecel waxaad faa'iiday keligaagaysan kugu ekaan walaalaha kalena la wadaag si aad adigana ajar uga heshid sidoo kale haddii aad tahay markii kugu wareysa aad soo booqato kanaalkeena fadlan kusoo biir tiimkan quruxda badan jecel mar walba inay soo gudbiyaan waxyaabo bulshada faa'iido u leh inta kulmi doono muuqaalka xiga waxay leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bisan lafnabada ka shaqeyn salaam